dejinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin oo kula kulanay degmada Lodhaya ayaan waxa ugu horeyn wax ka weydiinay ujeedada safarkiisa ama socdaalkiisa. wad maadsantahay wariye socdaalkaygu wuxuu ku salaysan yahay inaan kormeer ku sameeyo gobolada degmooyinka iyo maxaan ku raad tuulooyinka intaba kuwaasoo ay la socdaan hay'adaha caawimooyinka yihiin kamid yihiin UNHCR Hargeysa UNHCR Djibouti iyo maxaan ku raad Onaris Djibouti kuwaasoo eegaya xaaladda caafimaadka biyaha iyo waxbarashada iyo nabadgelyadeeda intaba kormeer oo eegaya taasoo ay tahay halkii waxay ka dhimayeen iskuul ka dhimayeen iskuulkii wax laga qabto halkii caafimaadku ka dhimayeen caafimaadkii wax laga qabto halkii waxbarasho ka dhiman tahayna waxbarashadii wax laga qabto taasoo ay ku salaysan tahay haddii magaaladaas dad ka maqan yihiin dadka lagu soo celiyo waxbarashadii ma ku filan tahay mise kuma filan haddayna ku filayn intii loo kordhinayay biyaha intii kale iyadana loo kordhinayay caafimaadkana intii loo kordhinayay taas ay ku salaysan tahay kormeerkayga wuxuu isku jira laba siyaabood siyaasadda dawladda oo ah in la kormeero deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta oo baahida dadka had iyo jeer la socdo ayay ku salaysan tahay iyo hay'adahaas oo maxaan ku dhahay iyaguna wixii wax qabadka ahaa oo doonaya inay ku kordhiyaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo iskuuladaba inay wax ku kordhiyaan hadba wixii ka dhimanba inay ku kordhiyaan si dadka ugu filaato arrimahaas kormeerkaygu kamid yahay